بسم الله الرحمن الرحيم أصحابتي قلبنا ما وناقصن مeel kastoo aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada wararka ugu dambeeyay ciyaaraha waxaan falanqeyn doonaa saaxiibayaal kulanka Old Trafford ka dhici doona caawa 4 saac xiliga geeska Afrika ay ku dhaxmari doonaan naadiga Manchester United iyo naadiga Liverpool labada naadi waxa ka dhaxaysa xamaasad weyn maadaama ay yihiin labada kooxood ee weyn oo ka badan horyaalka Premier League labada naadi ayaa waxay labada naadi kaliya ee horyaalka Premier League aan wax ciyaaryahan isa gadan حتى اسمه سلامان يريانادو ليفربول iyo Manchester United waxa 12 ciyaarood ee la soo ciyaar la soo dambeysay ay ciyaaraan Liverpool iyo Manchester United waxay Manchester raysay hal mar kaliya hal kaliya bayraysa halka 5 jeer la qaraacay 6 jeer barbara ay galeen waxaad taas ka dhahanaysaa in naadiga Liverpool ay ka awood badan tahay naadiga Manchester United maadaama labadii kulan ugu dambeysay ay gool fiican ama si fiican ay u jilcisay waxa lagu soo boqday garoonka garoonka lagu magacaabo Old Trafford 5-0 ayaa madax loo gashay naadiga lagu magacaabo Manchester United xaayig la soo dhaafay waxa ogtahay in Liverpool sanadkan ayaduna ay ka dansan tahay maadaama horyaalka Premier League ay leh dhibcood ka haysato waxay Liverpool uga jidaa kala sareynta horyaalka Premier League waxay ku jidaa 12 kaalinta 12aad halka naadiga lagu magacaabo Manchester United ay ku jido kaalinta 20aad waxa ogtahay faqriga u dhaxeeya labada naadi oo ah labada naadi oo laga fiirsado horyaalka Premier League waqtiyo hore laakiin sanadkan aad u maleynaysid in uu gaab soo galay waayahoodii horyaalka Premier League waxaan ognahay naadigan lagu magacaabo Liverpool inuu dhaawac ka yahay laacabo badan ay ka mid yihiin daafici oo macnaha Gomez kulli waa maqan yihiin macnaha difaacshadeedu aad bay u ridataa maadaama goolka Real laga daba keenayay waxaan kaloo saaxib ognahay naadiga Manchester United inay ay xifaalta weyn kala dhexeyso naadiga Liverpool ay labadii kulan ee soo dhaafay ay guuldarada qaatay loo maleynayo inay guuldaro qaadanayso kulankan maadaama labadii kulan ugu horeysay ay guuldaro soo qaadatay ay la dheeliso hadeerna naadi macnaha ay xifaaltamaan gurigooda ay ku dheeliso waxay muujinaysaa inay isbirid samayso ama goolkan break la timaado dhibic kala timaado ama ay guulaysto ay la soo shirtigaysaa naadiga shaadinta asas halka naadiga Liverpool oo og inay ka adag yihiin naadiga Manchester United ay isku taxadirayaan oo isku su'aalgamayaan inay raayaan gool kaliya ay ku soo meesha Liverpool maadaama ay horyaal tartamay sanadkan naadigaana naadi tirsan ay u arkaan inuu yahay ay ka reen karaan macnaha kulamadii ugu dambeysay iyo kulamadii la soo dhaafay horyaalka Premier League sanadii la soo dhaafay oo dhan ay karaayeen maadaama ay ogyihiin inay awood haystaan laakiin waxaan ognahay labadii kulan ee la soo dhaafay horyaalka Premier League inay tabar darri ka muuqato naadiga Liverpool oo ahaa xog iyo awood ku muquulan jiray naadiga shirarka horyaalka Premier League hadda waxa aan ognahay macnaha Liverpool inay dibdhac hoose khadka dhexe ilaa weerarka saadibaan uu iska tagay halka la wiil oo wiil yar cad soo gateen oo roos iska qaadanayo iyo unigi Diaz ahayo asaguna galab wax ka soo noqday waxaan ognahay laacibka Sadio Mane inuu boonto weyn kala tagay naadiga Liverpool waxaan ognahay kulmada soo dhaafay inuu laacibka lagu magacaabo Sadio Mane Bundesliga aad u shidinayay maadaama Lewandowski uu iska baxay naadiga Bayern Munich Liverpool ay dibdhac weyn ay ka dareemayso booski laacibka lagu magacaabo Sadio Mane ee Senegal waxaan ognahay saaxiib waxa la filayaa in laacibka weyn ee Cristiano Ronaldo la dhigi doono kaydka maadaama laacibkii hore ee liiga ka ahaa naadiga Manchester United Wayne Rooney kabtan u sahan jiray uu sheegay laacibka Cristiano Ronaldo uu sheegay il tagaag inuu kayd ka dhigo maadaama wax natiijo uu sakin karin kulankan il tagaala tabarahan dhawaangalka ah ee Manchester United ayaa u xumaraya dhibaatadii iyo tijaabadii ugu adkeyd ee horyaalka Premier League uu dhawaangalku yahay waxaan ognahay in la tagaa uu soo gatay laacib lagu magacaabo Casemiro Ronaldo ay qancisay la soo wareegida Manchester United laacibka lagu magacaabo Casemiro uu ku digay waxaan ognahay saaxib kale in kulankan noqon doono kula xamaasad leh kulan loo kala eegan doono labada naadi kiba awood badan labada naadi yaa hol soconaya labada naadi yaa la fadhi kara wuu soo kaban karaa macnaha labadii kulan ugu horeysay maadaama effect soo gaaray yaa la fadhi kara wuu soo kaban karaa
لان كلن كان خدعت الاطراف دوك لوغان يا صاحب يا waxaan kaloo saaxib ognahay oo aan warbixin aan ku haynaa waxa la ogaaday istiqisho loo ogaaday safay kusoo gali karto adiga Manchester United waxa la ogaaday naacibka lagu magacaabo Cristiano Ronaldo inuu kursiga keedka yaalo ya salaam malaa Cristiano Ronaldo malaa'ibkii kulamada weyn ayaa ka dhigay hadeertaan Allah adduun kaas iska nacaan ku marka waxa la filayaa kulankan in naacibka lagu magacaabo Cristiano Ronaldo keedka dhigo maadaama macnaha horyaalkii halyeeyay hore ee Manchester United lagu magacaabi jiray laacibka Rooney uu sheegay laacibka inuu san dejin ka kan doonin laacibka lagu magacaabo Cristiano Ronaldo oo waayay dambe ku jira buuq xagga inuu sii joogo doono horyaalka Premier League ila adiga Manchester United marka kulankan waa kulan waxaan falanqeyn doonaa oo warbixin kuban ka sii diiban doonaa marka kulankan uu soo dhamaado laakiin hadirtan kulanka warbixin ayaan ka sii doon kasi macnaha korgudbinayna hadii kulankan laga raayay adiga Manchester United waxay noqonaysaa 2002 ugu dambeysay Manchester United bilow horyaalka Premier League saddexdii kulan ugu horeysay laga raayo iyo 1960 marka taariikh ay gali doontaa Liverpool hadii kulankan laga raayo aan barbara ay gasho waxay ku noqon doontaa dhabarjab maadaama ay la tartamayso adiga Arsenal iyo Manchester City oo la qabanayay sanadkan maadaama xalay ogeyn adiga Manchester City inuu guul halisa gaaray maadaama Newcastle oo kala hormaray 3-1 uu ka daba keenay naadiga uu hogaamiyo Pep Guardiola laakiin kulamada soo socda ayaa wixii kulamo xamaasad leh aad marka kulanka caawa saas intaas ku soo gogoyna saaxiib hadii ay wali la soo joogtid waxaan ka codsanaa saaxiib oo mahadsan oo mudan inaad subscribe noo sadid like ta iyo share ugu caawisid waana ku mahadsantahay saaxiib marka qaadkaaga